suxufi mahad faarax cabdilaahi oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo ilaalinta xayawaanka ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaga hadlay xayawaanka loo yaqaan diinka oo muddooyinkii u dambeeyay hadal hayntiisa ku jirtay warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada iyadoona la sheegay inay iibsanayaan wadamo kamid ah qaaradda Aasiya waa sida uu hadalka u dhigay waxaana kamid ah hadaladiisii ka war haysan maalmihii u dambeeyay waxa in baraha bulshada iyo qaar kamid ah telefishinada afka Soomaaliya ku hadal lagu faafinayay arrin ku saabsan saylad ganacsi oo diinka lagu kala iibsado oo laga furay magaalada Muqdisho walaalayaal waxaan idin sheegayaa diinka waxa la yiraahdo wuxuu kamid yahay xayawaanka tirada yar ee ka sii hadhay ugaadhina duurjoogtaha ee dalkeena ku noola ugaadhi dalkeena ku noolad waad ka war haysan bar waxay u qaxeen wadamada aynu ku jaarkanahay Afrika intii kalena waxa urusay dawladaha Carabeed ee ay kamid yihiin Imaaraadka Carabtu Qatar iyo Kuwait waxaanay ku xariisin xiriirkaas ku yaala walaal baadhisan sameeyay waxaan ogaanay in marka arrintan diinka waxa ka dambeeya dawladda Imaaraadka Carabta waxaanay doonayaan diinka iyo bahasha la caasho baridaba inay urursadaan oo ay ku xariistaan xiriir ku yaala dalkooda oo ay dadka dalxiiska lacag ka qaataan taasi waa qodob waxaan intaasi ku daraya dawladaha Carabeed waynu ka war haynaa abaarihii dalkeena ka dhacay waynu ka war haynaa wax allaala wax aawima oo ina siiyeen iyo wax taageero oo inoo geysteen ma jirto maantana waxaan uga taaglan xayawaankeenii walaalayaal waxaan idin sheegayaa boobka dalkeena ku socda uu balaaran yahay awal hore baddu ahaa macdantu ahaa imika wuu soo dhaafo wax maraya diinkii arrintaasina wax la aqbali kara maaha arrintu markii caynka tahay waxaan idin sheegayaa baddiina ilaashada khayraadkiina ilaashada waxa aqbalin in la gurto dadka wax garadka iyo culimada iyo qurbo joogana waxaan ugu baaqayaa warumada halaga wacyi galiya arrimaha noocan ee socda ayaa waxaan halkii ku soo gabagabeynaya dalka la yiraahdo imika Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga anigu maan tigin waxa ku nool bahal la yiraahdo abeeso iyo musacagali abeesada dalkooda ku nool haddii aad qof ajnabi ah toad sidaa u eegto wax kale iska daayo xabsi bay ku rideen waxay ku oranayaan madaxaha ku furto telefishinka caalamiga ah magaalada Burco.